Ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروان اسكا حنوسانا يا ورد دقدقا حدثنا سو قاعدي وركا دقدقا انا امد الصومالي اللي وداقان ربا كل كومن راقيو وور آدي ادو قابن وماركتي سي دقدقا حدثنا سو قاعدي ايتوبيا نغا سو قاعدي ابشروا السلام عليكم. وروان حنوسانا يا سيحن بانو حنوسانا يا موقتا waxaan maaragtay warba hadda na soo gaadhay dawladda Itoobiya naga soo gaadhay waa war la hubo oo maaragtay wax shaki haba yaraatee una ku jirin waxaan u digaynaa mas'uuliyiinta ONLF in la idin xidhaa la rabaa mas'uuliyiinta ONLF Israailiya xafiisyadiina inaad dhex fadhidaan ma aha waa war hadda aniga la wadaagay oo la yidhi u sheeg ummadda Soomaaliyeed مسؤولينتا ugu sarsaraysa ONLF in la xidhaa la rabaa kolka waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta ONLF war hadaad Kenya tay karaysaan iska taga laakiin xafiisyadiina ha fadhinina go'aan baa la gaadhay mar quraata in la wada xidhay ahayd baa la yidhi ma aragtay Colonel Abiy baa diiday ONLF ta Oromada iyo ONLF ta Soomaalida mar quraata in la wada xidho iyaan rabnaa bay yiraahdeen nimanka maxaaradu Colonel Abiy baa diiday oo yiri han kala dambaysiino horta Oromada han xidhno dabadeed kuwa kala han xidhno laakiin geed quraad laba geed mar quraad ma wada korina buu Colonel Abiy kolka maanta go'aan waxa lagu gaadhay mas'uuliyiinta ONLF in la xidho waxa la rabaa ummadda Soomaaliyeed waxa la wixii xaq xuquuqdooda u dhaqaaqay oo in xabsiga lagu guro mas'uuliyiinta ONLF aniga waa hadda wax la wadaagay مسؤولينتا ONLF gaarsiiya intii garanaysaay waa inaad gaarsiisaan mas'uuliyiinta ONLF ugu sarsareeya war ama Nairobi iska taga ama meel kala taga laakiin xafiisyadiina ha fadhinina waa go'aan la gaadhay haddana soo gaadhay war beenana ma aha waana arki doontaan anu waxaan leeyahay war mas'uuliyiinta ONLF ta gaarsiiya intaanan la xidhin ama Nairobi ha iska tagaan ama meel kaleba ha tagaan laakiin mas'uuliyiintaas inay xafiisyadooda isku haleeyaan uma banaano warka la wadaag ummadda Soomaaliyeed baa la yidhi inaguna intii karaysaay mas'uuliyiinta ONLF gaarsiiya si ay uma aragtay uga taxadiraan in la xidho mar haddii la xidho khalaas waa u dhamaatay ilaa iyaga u dhaqaaqada wax ONLF leeyahay ogaadeen iyo waxa iyaga u dhaqaaqa moogtay mar haddii la xidho waa u dhamaanaysaa dadka wuxuu ka tooganayaa indhuhu ka tooganayaa ninkani indhuhu ka tooganayaa maxaad soo qortay mahad faarax maxaa af Soomaaliya maxaad soo qortay kolkaan waxaan leeyahay Soomaaliya mas'uuliyiinta ONLF gaarsiiya warkaas hadda soo gaadhay anu waan iska xanuunsanayaa ma baqi karaya laakiin waxa la yidhi ummadda Soomaaliyeed u sheeg warkaas hadda ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu ka soo baxay in la xidho ama toddobaadkan ay ku dhaqaaqayaan ama maaragtay waqti doonaan bay ku dhaqaaqayaan any time happen kolkaan mas'uuliyiinta ONLF say uga leexdaan dariiqa u sheega iyana la yidhi anu taasaan la wadaagaya ONLF meeshii joogtaba gaadhsiiya nimankii ogaadeen Facebook soo gali jiray xagee ku halaabeen horta maba joogaan kolka inta gaadhsiiya ONLF meel kasta ay joogto waa inaad gaadhsiisaan intaasaan u soo galay maaragtay lama magarsa maaragtay waa laga qaaday maaragtay isagana ilaaliyaashiisii gebi ahaan waa laga qaaday lama magarsa waxa la yidhi dibadda isaga bax maaragtay ma fadhin karaysa Itoobiya iskaga bax baa la yidhi xaaladda Itoobiya faray ka sii baxaysaa yaan la idin galaafan waraaba markuu dhimanayo wuxuu doonu qaniinaa waraaba dhimanaya ilkiisa ku dhimanina ONLF waraabahani wuu dhimanaya waraabuhu markuu dhimanayo waa la iskaga fogaadaa laakiin ha ku dhimanina ilka waraaba oo sii dhimanaya ha ku dhimanina ONLF intaas la ila soo wadaagay hadda maaragtay niman aad iyo aad ugu dhundaloola oo meesha dawladda ka tirsan yaa hadda ila soo xiriiray ONLF iskaga leexda dariiqa ka leexda xafiisyadiina ha dhex fadhina runta doonaysiin haba yaraatay xafiisyadiina ha dhex fadhina xafiisyadiina marnaba ha isku haleynina ama Nairobi iska taga Nairobi horta leedinga ma soo qaban karayo hadda Nairobi tagtaan cid soo qaban karaysa male iskaga leexda intaas la wadaag la yidhi kolka inaguna gaadhsiiya wixii aad gaadhsiin karaysiin mas'uuliyiinta ONLF
already kuwii oromada waa la xidhay qaar baa yaa guri xabsi guri ku jira kolka hadda waa la xidhi doonaa daawud ibsa iyo odayga kalena waxay ku jiraan xabsi guri intii kale oo lafti oromada waa la wada xidhay laakiin hadda waxa ku xiga oo in lafti Soomaalida yaa ku xigta hadda warka la wadaag baa la yiri warka u sheeg baa la oo in lafti intii garanaysaa qof ogaadeen ninkii garanayo share ku dheh live ogaadeen ninkii garanayo share ku dheh مسؤولينته أنا لفت جارسية فرينتا وفرين دق هذا يسوق قاعدي مدة 10 minutes يعني كوكا لبحني شيء كذا ولا يسوق جارسية ورأنا كان لو ذاك بالي أمة الصوماليات الصومالية هذا وتلوانا لو قريها أورنينا هاي ما قرنينا أنا والكان لفنا بالدا عاد لفنا ماشي أنا بين إني ماشي رون وحناين بين أبدا إنه أحمد بشير ماشي على سوق سني وحرونا أو عاد بنا أنا والكاس اللي سوتاجا بين هدو ياي ورك هدو بين يا مسوق لانو warka aan hubsado oo nduuxo iyaan dadka la wadaagaano kolka mas'uuliinta oo meel kasta joogan waa inaad gaarsiin ogaadeeno hadaad waragii ogaadeen ma midba kan ma ogaadeen ba calanka ogaadeen ku staaban malay Musa Ahmed ma malay I don't know kolka wax weeyaan war gaarsiiya mas'uuliinta oo laftayaan la galaafan iyana gacan ka xaq daran iyana dilin aadar real ka gaadha intayna xabsi galin waa inaad u sheegtaan mas'uuliinta oo lafta war xafiisyadiina fadhinina iskaga baxa meesha oo ma aragtay ama Nairobi aad ama meel kale ba aad waad aadi kartiin maanta laakiin adeero waa la idin tashaday warqadu way go'day ra'iisul wasaaruhu hadda ra'iisul wasaar isku sheeg meesha jooga dictatorka meesha joogay ee dawladda mililig way go'aan bay ku gaadhay in la idin xidho waa oo in la waxaan u sheegay war adeerayaal ninkii Soomaaliya ee ka naxay ummadda Soomaaliyeed gaarsiiya ma arkay calankii ogaadeen ka hadaan halkan calankii ogaadeen halka kama arkayo faleefkayga kama arkayo laakiin intiina meesha ku jirtay la wadaaga ma aragtay kulli waxaad leedihiin ma dad ogaadeen inagu xidhan waad leedihiin la wadaaga clip taayir gaarsiiya dad walaalaha ya weeyaan in ma aragtay dhibaato lagu sameeyo mar rabno ma aragtay inta dhibaato soo gaarin in iskaga baxaan meesha oo ma aragtay meesha ay ku badbaadi karayaan ay tagaan baa loo baahan yahay war adeerayaal gaarsiiya inta naxariisadan maanta isu naxariisan waaman isu naxariisanayna ha maanta hadana isu naxariisan maanta hadana cadowga isaga digin maalin kale oo isaga digaynaa ma jirto warkaasi sir ahaan ayuu igu soo gaaray anu lama dhuunto wax kasta sir ahaan dad dawladda ku dhex jira oo aan u dhow arad kilo iyo ma aragtay warka ay soo siiyay oo NLF ma badbaadi doonto dobaadka soo socda ama ma waqti doona noqoto ma badbaadi doonto la wadaaga oo NLF mas'uuliyiinta iskaga baxa meesha shaqaalaha yaryar ee meesha iska joogan laakiin mas'uulka hadii la qabso waxa dhintay halgankii oo dhan uu dhimanaya saawad ogsoontii maan malanaya qofka mas'uulka mar hadii la qabto halgankaas uu dhimanaya mas'uulku waxa weeyaan hogaamiyaha ummadda weeyaan kolka hogaanka ogaadeen hadii la qabto ma jirayso ma aragtay ummadda ogaadeen ma si dagaalami karayso waa hogaanka wax laga dhimanayo kolka hogaam ma aragtay mas'uuliyiinta hogaaminta sarsare ee ONLF iskaga baxa meeshaad aadaysiin de inagayni taalaataasi laakiin anigu waa digniin la isoo siiyay la yiri war ummadda ma aragtay u dig jabhadda ONLF warqadii way soo go'day waana lagu tari jiray hadda in la xidho ma aragtay u sii sheeg wixii ka baxsan karaya ka baxsado arin la yiri oo hadda la ila wadaagay weeyaan la wadaaga ummadda ONLF walaaleena si ay ma aragtay taxadir u sameeyaan iskagana baxaan meesha waa xafiis oo fadhiisan karaysaan ma jirto isilaaliya xafiiska waa la inagu qaban xafiiska iskaga dheeraada sidaad isu badbaadinaysiin niga jirtaa laakiin anigu waan inii sheegay inta la wadaaga hadaad ma aragtay Soomaalinimo la iskaga naxayo dadnimo la iskaga naxayo anigu maanta oo NLF wax weeyaan urur dulman urur xaqiisa raadinaya urur ma aragtay sida oromadu ay u dulmantaa u dulman weeyaan taanu aqaan waasa berigi hore waan siiraha haysanay laakiin maanta waxaan la soo taaganay anigu oo NLF waa urur sida anagu xaq aan u raadinay madaxa hadii la xidhana adeer ummadan baa halaagmaysa qofka mas'uulka hadii la qabto ummadan baa halaagmaysa oo halgan ma dhaqaaqi karay taawan wada ognahay baan malaynayaa kolka mas'uuliinta oo NLF boor iga gaarsiiya arrinkan waa arrin arad kilo ka soo baxay oo run ah oo been ku jirin mas'uuliinta oo NLF la wadaaga ma aragtay hatta shadaan meesha ay ku badbaadayaan ha ku badbaadaan laakiin in la xidho waan ka soo horjeednaa in ma aragtay waradu naga bax in kaar kugu dhacday bisinka yaasinka kan xaqu ka yimid waamad adigu ilbixi nacala talla عليك waamad ilbixi nacdal kugu dhacday
ما يلبحيس ولي قادوي كل كا أو أنا لف مسؤولين تهذا لو ذاك إني كبد بادان حرقة كبد بادان ماشي كبد بادي كريان أمد بي هو جاميالو يهين أمد بي أماملو هيان أمد داس هدي لقى حلو أمد داس هبين بقى وقلي وذاركيسين أورك أو ألفتا أورمضة ولا وضع حري حبس بيكود الجيران مع الجوار محمد حبس بكجرا وحري مجرو أو أنا لفي عندها إنتادنا إسكو قبن حتى كسي تشذا حفيز تنبأ أو تكتان يون سنجرين وأمريكا معركة حتى اللي أنا اللي يورجلي تهويا ها مسؤولين أو أنا لفت لو ذاك ولا ليال وعدد ولا لهنا وعدد هالجمية أو معركة أمده ذو هالجمية وإن لو ذاك تان مسؤولين أو أنا لف أي كل إحدان طريقة إن إسكال إحدان أنت يجور تاي أنا اللي حرين warkaas wuxuu ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa ra'iisul wasaare ku sheeg weeyane aan ra'iisul wasaare ma oranaye xafiiskiisu ka soo baxay warkaa gaadhsiiya intaas aan ugu soo galay waan xanuunsanayaa wallahi aad baan u xanuunsanayaa ma sii hadli karayo sheer dhaha oo ana lafta sheer ku dhaha intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo qofkay soo qabali farxaan ibraahim balaan ku soo qabto had ku socod أنا ما هاد لكرا يواي وان حنوصل والدبابة دي تانجيالي وحبا كوس على اللي راح قاسم حاجة حتى واحد صوب حي رئيس الوزراء كوشيجا حبيس كيس واحد كصوب حدا أورك أو أنا مسؤولين تينا إن حرق لو قرا لو يا لو حدي أتقانت وح أوجادين أما وح أو أنا لف كوشير جريا ورها كبح سودان أنتينن أين سوقارين أما نيروبي هاو بحثدان أما ميل كلا هاو بحثدان gaadhsiiya oo sheer ku dhaca dadka walaalaheena war hortaabaan anu fariin dareyntaan garanayay waxaan ku yiri yani taangiyaal iyo kuwa miisilada tuuro iyo arrimuhu ninkan iyo soo wadayo harbu ku wadaaba liiray wuxuu har ma wax loo soo waday wax weeyaan aan ogaadeen loo soo waday ogaadeen ku socdaa dalish ogaadeen dimaan miisilada ogaadeen ku socdaa ما يمسنه ورهب كجوريا ماشي على كل حال وحويان او انا لفسان لو خخخدين inaad wada gaarsiisaan oo iskaga baxaan xafiisyada ay ma aragtay meesha kuleeyeen ay iskaga baxaan iyana anagu aan rabnaa sababtaan soo galayna waa inta oo ana laf wixii aad karaysiin gaarsiiya wixii aad heli karaysiin gaarsiiya mas'uuliyiinta oo ana laf ummadaas hadii laga xidhiidho ummadaas Soomaaliyeed inda isku qabanaysa halkankooda indhu isku qabanaya sida oromada maanta ma aragtay sida oromana isugu sii tiirsano oo ma aragtay dad kacdoon le maaha oromada maanta inkastoo jawhar la xidhay haddana kacdoon kuwa kama joogsanay way oromo jawhar mar hore uga sii shaqeeyay waxan kolka ummada oo in la for u diga oo ma aragtay xafiisyada iskaga baxdhaha inta gaarsiiyo wixii aad taqaaniin intaasan aan walaalka u soo galay maxaad leedahay adu waxaan leeyahay wax kalmadii adu waxaan ku leeyahay ninkii lama magarsan uu eriyay أنا ما بقدر وكنت دبته بحبال إيدي ودبته ولا صو وحال جورجا قالوا كويو بكيرو وفصح سكن ما قرتي نكو والنا يعني كان أبي وصوا ورابد منا يوين ورابد منا ين ولا قدر هذا أنت ودمنا ينفتك بحيسو نفتك ويكبي حدون تلا لبا بلوه ما سينا لبا بلوه هتو لو قاعد بل ما بدافع يموت عندنا بدون أي reerkan ogaada meesha ka baxadhani oo ku qaylaan oo qeylita kariye sheeru sameeyay iyaga baan u soo galay inta yar ogaadeen kaasaan u soo galay sheeru sameeyay wad ma tantahay waran waliyo nilba hata wallahi dibaabadii waxba ku socdaa leeyahay xagaa oo dhowr iyo 40 taangiba ku socdaa leeyahay xagaa war xafiiska ama ra'iisul wasaare ku sheegay Dr. Abiy dad u dhow oo la shaqeeya iyo hadda isoo wacay aniga kolka warkan war beena ma waa war la hubo kolka wada gaarsiin intaas aan ilaahay salaamu calaykum anigu kuma sii jirayay waan ka sii baxayaa waana iska xanuunsanayaa mana hadli karayo war adeerayaal ogaadeenka u diga jabada oo lafta u diga sheer ku wada dhaha inta ma aragtay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh